kulanti waxaan u wanaagsan idlahaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka mawalada dhallaanka waa ka daawataan marka soo booqataan channelkan ku leenahay YouTube ee dhalaan koriye waxaase sheekooyinkan iyo kuwii ka horeeyay maqal muuqaal iyo qoraal intaba mar kale aad dib uga daalacan kartaa shabakadaanu internetka ku leenahay ee dhallaankoriye.com toddobaad kastaba sheeko cusub ayaa ku maqashaan sheekada toddobaadkuna waxay qaybteedii tobnaad tahay taxanaha sheekooyinka boqorada siraad waa boqorad aan sheekooyin hore u badan ka soo maqalay waxay saaxiib la tahay duulaaga wanaagsan oo ah saaxiib iyadiyo boqortooyadeedaba caawiya markay dhibaatooyin la soo daristo aanse ku bilaabo ee waxay ahayd waqti xilli barwaaqa iyo nabad ay ku sugnaayeen boqorada iyo boqortooyada ay ka talisaaba maalin maalmaha ka mida ayaa waxay fariin uga timi saaxiibka wanaagsan ee boqorada caawiya waa duulaaga Liabel wuxuu kula ballamay geedka ay had iyo jeer ku kulmaan boqoraduna xilli aroor hore ayaa u jarmaaday geedkaas si ay ula kulanto saaxiibkeeda wanaagsan Liabel waxay u jahaysatay dhabaha iyo jidka loo maro geedka weyn wax yar markay soo gaadheen waxa isla markiiba goobta yimi duulaaga wanaagsan ee Liabel oo ah mid had iyo jeer leh dhibaatooyinka boqorada soo wajaha ka caawiya way salaantay waxayna markiiba u sheegtay ujeedka ugu yeedhay waxay tiri waxaan doonayaa inaad iga caawiso arrinan xal waayay waa midhahan waa kuwa sumaysan waana kuwa uu had iyo jeer adeegsado duulaaga xun ee Liabel wuxuu ku waxyeeleeyaa oo ku dhibaateeyaa dadka iyo dunyada ku nool deegaankaad boqorada ka tahay waxaan doonayaa inaad midhahan qaado ood ku aasto meel uusan weligii gaadhi karin si dhibtiisa adiga dadkaad boqorada u tahayba ay uga raystaan boqorada ayaa cabsootay waxayse u sheegtay Liabel inaysan baqan waxay jiri waxaad ku soo aastaa gadaasha dambe ee ayda iyo dhulka lama deegaanka ah waa dhul aysan weligeed arag boqoradu balse talada ay u soo jeedisay duulaaga wanaagsani waa mid aysan diidi karin boqorada oo ka warwarsan goobta loo diray iyo hawshay qabanaysa intaba ayaa haddana amarka qaadatay waxay tidhi haye waxayna u tilmaantay duulaaga wanaagsan ee Liabel jihada uu ka xigo aydu waxay ku tidhi soco tan iyo intaad ka gaadhayso ridda weyn ee labada tiir leh halkaas ayaan albaab iyo kadin laga galo ayda iyo dhulka lama deegaanka ah boqoraduna amarka ayay qaadatay waxayna u lugaysay halkii ay u tilmaantay duulaaga wanaagsan waxayna si taxadar leh uga gudubtay jidkay haysay waxay socotana waxay markii dambe soo gaadhay kadinka iyo iridda laga galo ayga iyo kaymaha cidlada ah waa meelaysan weligeed arag waxay tidhi halkan ayaan u malaynayaa inay tahay halkii lay tilmaamay way u diyaargarowday say orod iridda ugu gasho balse wax yar ka hor intaysan ordin ayaa waxa si lama filaana ugu yimi labada saaxiib ee boqoradu leedahay waa laba jir oo had iyo jeer aan layseenu sheekooyin horo badanba ku soo baranay noloshooda kuwa hesha waxay ku yidhaahdeen waxaanu doonaynaa inaanu kaa caawino hawsha culus ee lagu diray boqoraduna waxay u sheegtay in meesha loo socda ay tahay meeldhib badan bahalo iyo weliba cabsi leh adag tahayna inay raacaan balse waxay ku yidhaahdeen waxaa laga yaabaa haddii aynu wadajir hawshan u qabanno inuu si dhib yar u guulaysano waxaan doonaynaa inaanu ku caawino oo aanan kelidaa kaaga tegin hawsha culayska badan leh ee lagu diray boqoraduna way ka yeeshay codsiga labadeeda saaxiib waxayna go'aansadeen inay si wadajir ah u galaan duurka orad ayayna iridda weyn kaga gudbeen waxay sii socdaanba waxay gaadheen ay iyo dhul madow oo lama degaan ah roobab mahiigaan hilaac wata ayaa ka da'aya meel kasta saqadha danabka ayaa ka yeedhaysa waxayna maqlayaan cida bahalo aysan weligood arag kuwaasoo mararka qaarna hortoodaba yaacaya cabsi iyo argagax ayaa soo wajahay boqorada iyo labadeeda saaxiib waana dhul madow labada jeer ayaa cabsooday waxayse ku tidhi ha baqanina waa inaynu qabanaa hawsha laynoo diray ammaankeenna iyo kan dadkaynala nool ayaa ku xidhan muddo ayay lugeeyeen ayda madow ee dhirta badan leh si ay u gaadhaan halkii loo tilmaamay balse wax yar kadibba waxaa geedkii kale ugu yimi Liabel duulaaga xun ee Liabel wuxuu ku yidhi waxaan waayey midhahaygii waxaana filayaa adiga ayaa qaatay
hadda ayaan u baahnahay ee isii waxay ku tidhi midhahaas dadka ayaad wax ku yeelaysaa waana cadow ummadda oo dhan u ah waanan tuuray mana heli doontid waxaana lagu aasay meel aanad weligaa gaadhin oo boqoradda siraad ayaa qaaday markii uu intaa maqlay ayuu mar kaliya maroro dilaacay oo xanaaqay cadha ayaa madax martay wuxuu yidhi waad ogtahay oo waa noloshayda ma dhici karto halkii ayay ku soo aasaysaa hadda ayaan u baahnay waana dilayaa iyada iyo saaxiibadeedba dulaaga wanaagsani waxa uu ka dabaganay fallaadho si uusan waxba u yeeli karin boqoradda iyo saaxiibadeed boqoradduna waxay ayga madow la sii lugaynaysaa saaxiibadeed iyo midhihii loo dhiibay waxayna si lama filaana ula kulantay goob madow ah ay ugaadhsato ganayaan duurjoog fallaadho xawli ku socda ayaa nafteeda iyo tan saaxiibadeedba halakeeyey orad ayayse uga baxsatay oo fallaadhihii ay ugaadhsatadu ganaysay uga soo gudubtay waxay soo socotaba waxay gaadhay halkii loo tilmaamay oo ay arkeen iyada iyo labadeeda saaxiibna waxay haraba ka bilaabeen hawshii waxay qodeen godkii halka mid ka mida jiirkuna uu ka ilaalinayay bal in cadow ku soo socdo waa in godka la qodaa midhahana lagu aasaa halkaana uu ka baxaa geed waxyeelaynaya awoodda duulaaga xun ee kiyabeel balse mar keliya ayaa hilaac iyo olol ka soo muuqday gadaasha dambe ee halkii ay qodayeen waxaana ka soo dhex booday duulaaga xun ee kiyabeel boqoradda ayaa u yimi waxuu ku yidhi waxaan maqlay inaad midhaha iga hayso oo aad aasayso waa noloshayda haddaanad degdeg igu dhiibin adiga saaxiibadaaba waan dilayaa boqoraddu way cabsootay balse waxay go'aan ku gaadhay inay fuliso waxay kula balantay duulaaga wanaagsan waxay ku tidhi midhahan kuu dhiibi maayo hare ayuu isna ugu soo orday boqoradduna dagaal ayay la gashay waxayna ku go'aansatay in wax kastoo ay ugu kacaysaba ay fuliso wixii ay kula ballantay saaxiibadeeda wanaagsan ee liyabeel intay boqoraddu dagaalka kula jirtayna waxay labada jir la haadeen midhihii kadibna waxay ku aaseen godkii ay u qodeen sidaas ayaana ugu beereen halkii loogu talagalay markii ay midhuhu godka galeen ciidana uu jiirku ku rogay ayaa mar keliya waxa baabaday awooddii iyo tamartuu ku duulayay duulaaga xun ee kiyabeel boqoradda iyo labadeeda saaxiibna waxay si wada jira ugu guulaysteen hawsha loo diray kadibna orad ayay uga baxsadeen duurka madow ee baalaha dilaaga ahay ku nool yihiin iyaga oo faraxsan ayayna dab ugu soo laabteen boqortooyada waxaana u timi saaxiibkooda wanaagsan ee liyabeel waxay ugu hambalyeysay hawshay qabteen waxayna u sheegtay in boqoradda iyo boqortooyaduba hadda ay ka nasan doonaan dhibaatada uu ku hayo duulaaga xun ee kiyabeel boqoradduna aad ayay ugu mahadnaqday duulaaga wanaagsan waxay tii runtii waa maalin farxadeed annaga iyo saaxiibadayaba waxayna boqoradda iyo labadeeda saaxiibba u dabaaldegeen guusha ay gaadheen waxayna samaysteen doorsho weyn oo habeenkii oo dhan ku xalfadaynayeen sidaas ayayna uga guulaysteen halkii lagu aasay midhahana waxaa ka baxay geed weyn kaasoo duulaaga xuni uu kolba isku dayayo inuu tamar ka helo balse lagama yaabo sidaasna waxay boqoradda iyo boqortooyaduba uga raysteen dhibtii uu ku hayay duulaaga xun xataa haddii laga yaabo inuu mar dambe soo kaco wakhti ayay qaadanaysaa waxaanu sheekada tan ka baranaynaa guusha ay leedahay wadajirku iyo iscaawinta ay saaxiibadu iscaawiyaan intaynu tan iyo toddobaadka soo socda ku kulmayno sheekada tan ku xigta waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo wakhtigu ha idin wacnaado